علينا أن نطبق الإسلام في حياتنا في كل المجالات، وعلينا أن نطالب بذلك، وعلينا أن نذكر الناس بذلك. فلذلك نحن لا نحتاج إلى أي نظام من الأنظمة الوضعية، لا نحتاجها. نحتاج إلى الديمقراطية بديلا عن الإسلام، نحتاج الاشتراكية بديلا عن الإسلام، نحتاج العلمانية بديلا عن الإسلام. لا والله لا نحتاج إليها، لأنها أنظمة وضعية عقيمة لم تنفع أهلها، لم تنفع الذين وضعوها. أنت لماذا تبحث عن نظام آخر ولديك ما تطيب به حياتك؟ حياتك تطيب بالإسلام. ولكن أعداء الإسلام ماذا يريدون؟ أعداء الإسلام لا يريدون أن نجعل الإسلام في حياتنا. قد يخطر في بالكم عندما أتحدث عن أعداء الإسلام ربما تعتقدون شخصا غير صوماليا فتقولوا أنه عدو الإسلام. أنا لا أتحدث عن عدو بعيد، أنا أتحدث عن عدو يتواجد في وسطكم، أناس بلون بشرتكم يتحدثون بألسنتكم ويريدون لكم العلمانية. هم يسعون جاهدين أن يفصلوا بين الحياة والشريعة، يريدون فصل الحياة أو يريدون فصل الشريعة عن بقية الحياة. بدأوها بفصل الدولة عن الدين، قالوا الدين جيد وهناك أديان مختلفة، اجعلوا الدين في المساجد. هكذا فكر العلماني، ولكن نبعد ما يتعلق بالدين أو بالسلطة الدينية عن حياتنا السياسية والإدارية. هكذا يسعى العلمانيون وهم موجودون عندنا، ولكنهم متخفون، لم يكشروا بعد عن أنيابهم، وسيكشرون قريبا عن أنيابهم، وسيعضونكم وينهشونكم. الدين كامل لا ينقصه، هو قيم حنيف. لماذا نحتاج إلى القوانين الوضعية والأنظمة الوضعية الشيطانية الإبليسية؟ لماذا نحتاج إليها؟ لا نحتاج إليها. عليكم أن تكونوا واعين. لقد شغلونا بأمور أخرى. علمانية وفكر فلسفية اجتماعية سياسية oo doonaya oo gaalada ka yimi oo lagu kala sooco diinta islaamka ama dawladda iyo diinta lagu kala sooco oo la yiraahdo awoodda diimeed dhinaca laga dhigo ta kalena muxuu ahaa siyaasadda iyo ismaamulkeeda waxa weeye waa nidaam gaar ah in ku dhaqmina oo diinta yaani ka muuqan. dadku diimo kala duwan bay haystaan, marka waxa weeye halkan ku midoobi kari maayaan, waa sida iyagu qabaan. waxa weeye waa in la kala sooca bay yiraahdeen. waa fikirka asaasku ku yimi. innaka ma inanfacaya nidaamkaas maya. masaajidku nabigu sallallahu alayhi wasallam ka hagay, dawladda islaamka masaajidku ka hagay, bulshada halkaas uu ka hagay. haddii uu nabigu sallallahu alayhi wasallam kala saarayo dawladda iyo nidaamka nolosha kale iyo diinta islaamka, masaajidka waxa weeye kamu maamuleen. halkan ayaa laga diray muhaaya ciidamada, halkan ayaa amaradu ay ka soo baxayeen, halkan ayuu waxyigu ku soo degay, halkan ayaa laga hagay muslimiinta, halkan oo aan leeyahay waa masaajidka ayaa laga hagay. wuxuu naga rabaa dhammaan nolosheena oo dhan inay islaamnimo ka muuqato. nolosheena bulsho waa inay islaamnimada ka muuqataa. nolosheena waxbarasho waa inay islaamnimo ka muuqataa. dhinac kasta baan ka hadlaya. nolosheena siyaasadeed waa inay islaamnimo ka muuqato. afkaarteena oo dhan, mabaadi'deena oo dhan, wax kasta aynu ka hadlayno waa in aynu islaamnimo ku salaynaa.
dhibteenna xalkeennu waa islaamnimo waxaa la doonayaa in islaamka lagu eekaysiiyo inaynu kaliya qur'aan ku akhrisanno masaajidka iyo inaynu salaada masaajidka ku tukanno taasoo la doonaya in aakhirka inaynu ka baxno iyo in lagu soo koobo kitaabkaas in la barakaysto iyo qofku marka uu ka soo quusto daawooyinka cisbitaalada uu yiraahdo bal aan qur'aan ku eego iyo in maxkamadaha kaliya lagu dhaarto kitaabka dhaar qura uu yaalo maxkamadaha ayaa la doonaya islaamku waxa uu yimi muslimiintii waxa uu yimi dadkii xilligii joogay nabiga sallallahu alayhi wasallam ka horeeyay oo qofku aasayo inantiisa Umar baa kamida radiyallahu anhu Umar ina Khadaab ayaa kamida waad haysaan sheekada uu ku aasay inantiisa waa ka hor intaanu islaamin dadka noocaas buu yimi saaha xaalkoodu wuu bedelay iyaga muxuu ahaa adduunkii baraare gaarsiiyay dadkii kale muxuu ahaa mugdiga ku jirayna ka saaray maxay wateen islaamkan ayaa wax ku hagaagaya marka andimad kale oo la qurxiyay oo la macaaniyay oo la yiri islaamka ma diidayaan kuwa inala haray waa kuwa